Soomaalidu waxay tiraahdaa findhicilka ka waran baalido sheegistiisaba xaraana baali nagu hadaan reer awdalnahay kuma xisaabtamano xubnaha dawladda ku jira ee waxaan ku xisaabtamanaa wax qabadka dalka maxaa dalka u qabsoomay qiyaasna hadii aan 40 maalmood iyo 7 sano ee xisbiga kulmiya oo talada haye la isku eego waxaad soonaysaa waxa ka miisaan badan 40 maalmood alxamdulillah rabbil alamin nabiyana maxamed wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bismillah waxaan marka hore ka xumahay dhibaatadii ka dhacday suuqa baacmisharka ee gobonimo ee ku yaalay Hargeysa ee dab ku qabsaday waxaan Ilaahay uga baryayaa dadkii ku waxyeeloobay dabka iyo baacmisharkii iyo dhaqaalihii kaga lumayba inuu Ilaahay meel aan garanayn ka siiyo kana kabo saas baan Ilaahay uga baryayaa waxaan doonayaa inaan ka hadlo ballanqaadkii xisbiga wadani markii ololaha lagu jiray iyo boqolkii maalmood ee inoo qorsheeyay intaan kaga jiro iyo wixii uu qabtay maanta balan xisaabino kulay bini'aadamku inay xisaabtamaan baa wanaagsan runtii deegaan kasta oo xisbigaas soo maray baahidooda iyo baylahdooda ayuu ballanqaad ka sameeyay waxaan ugu talagalay in wax ka qaban doono boqolka maalmood ee ugu horeysa hadii aan qiyaasno maanta waxa uu jiraa 40 maalmood ama wax ku dhow ayuu muddo 40 maalmood aynu qiimeeyno markaa hadaba intii wixii uu qabtay iyo inta maalmood ee hadhay runtii marka la isku soo duubo marka laga eego mashaariicda biyaha ee galbeedka laga fuliyay iyo wadooyinka baleegubadle iyo Hargeysa laga fuliyay iyo marka boorama iyo baki dhamaystirka wadada la dhagax dhigay guud ahaan marka la isku wada daro waxaad u qaadanaysaa in 40 maalmood ay guul weyn madaxweyne Cirro uu ka soo hooyay iyo xisbigiisa iyo ku xigeenkiisa iyo xukuumaddiisuba waxaan leeyahay hambaliyo waan ku hambalyeynaa waxaan kaloo aan qiyaasnaa hadii aan 40 maalmood iyo 7 sano ee xisbiga kulmiya oo talada haye la isku eego waxaad soonaysaa waxa ka miisaan badan 40 maalmood runtii guushu waxay qiimo ku leedahay marka cidda aad iska soo horjeedaan ay ku qirto anigu runtii waxaan ahaa taageerayaashii kulmiye cidii doonaysay inay madaxweyne Muuse Biixi xukunka uu ku soo laabto ayaan ahaa laakiin waxaan qirayaa inay naga toosnaayeen maxaan ku raahdaa xisbigii wadani ballanqaadkiisina imigaba la hayo waxaana laga yaabaa in hadii 5 sano la doortay dadkuna taageeraan gacan lagu siiyo runtii inuu dalku uu horumar weyn gaarayo itiraafka iyo muhiimadda iyo dawladnimaduna ay dhismi doonto aad iyo aad baan ugu hambalyeynaya waxa kale oo doonayaa inaan halkan ka xuso waftigii ballaadhnaa ee u kacay nabadgelyada bariga Sanaag ee uu hogaaminayay wasiir Xamarji oo runtii wax weyn ka soo qabtay ninkaas oo wasiirkaas oo wasiir Xamarji oo runtii dhaqanka Soomaaliland iyo isku soo dhawaashaha iyo walaalnimada wax weyn ka yaqaan aqoon weyn oo leh aad baan ugu hambalyeynaa go'aankii ay habeen saddexaadkii ka soo saareen magaalada Ceerigaabo aad iyo aad baan Ceerigaabana ugu hambalyeynaa waxaan ugu baaqayaa in nabadgelyadooda iyo walaalnimadooda ay ilaashadaan oo aanu shaydaanku ka dhex faa'iideysan waxa kale oo doonayaa inaan iyadana wax ka idhaahdo hadalka aan qurux badnayn oo aan berberana oo qurux badnayn qabiilka Ciise Muuse oo qurux badnayn qabiilka Ciida Gala iyo airport kana aan qurux badnayn ee laga sheegayo oo sida maatida iyo maangaabka u wada hadlaya berberi Soomaaliland bay ka mid tahay Ceerigaabana maxaan ku radaa Cigaal International iyo airport kuna Soomaaliland buu ka mid yahay waan ka xunnahay hadaan reer awdalnahay in waxyaabaha noocaas ay Hargeysa ka soo baxaan waana wax laga yaaqsoodo way inkastoo aan maqlayay xalay inuu xildhibaankii xaal bixiyay haddana Soomaalidu waxay tiraahdaa findhicilka ka waran baalido sheegistiisaba xaraana baali xaalka waxa ka horeeya gelitaanka lafteeda ayaaba dambiya aad baan uga xunnahay waan qaranka iyo shacabka Soomaaliland baarinta waan ka taxseenaynaa intii ay dhagaha gaadhay waxaan u malaynayaa inay tahay riyo hay'ad arintaasi guud ahaan jawaabtii iyo su'aashii berbera ka socotay xaalad riyaaba hay'ad riyaan u qaadano ilaahayna riyaa ka dhigo
dalkuna waa dal dowladuna waa dowlad qaran baynu nahay haddii qof loo wada dhiibayo iyo haddii qof loo kala dhiibayo madaxweynuhu isagaa ku shaqale waanu ku garab taaganahay waanu ka soo horjeednaa cid kasta oo tiraahda halkaa wax lama geynayay iyo halkaa ha loo magacaabo aad baan uga xunnahay annagu haddaan reer awdalnahay kuma xisaabtamano xubnaha dowladda ku jira waxaan ku xisaabtamanaa waxqabadka dalka maxaa dalka u qabsoomay bari ilaa galbeed waxaan leenahay maxaa dalka u qabsoomay baan ku xisaabtamanahay kuma xisaabtamano maxaa hebel wasiire iyo maxaa hebel agaasimaha taa kuma xisaabtamano intaa markaan ka gudbo waxaa xishmad iyo karaamo iyo qadarin aan halkan uga jeedinana sid safarkii ugu horeeyey ee madaxweyne Ciro uu ku baxay oo runtii ka duwanayd sidii madaxdii hore ama ugu dambeyn madaxdii kulmiyaa u bixi jireen oo runtii si argagax lahaan jirtay oo sasma lahayd oo dariiqada la kala xidhi jiray oo dawyada la joogsan jiray oo baabuurta madaxweynaha la socotaa ay dadka siigada iyo dhagaxa ku sayin jirtay si ka duwan oo karaamo leh buu madaxweynuhu baxay oo dadkiisa la dareena si aan siigana ku daalin dariiqna looma xidhin dadna lama kala joojin aad baanu madaxweyne taana kuugu hambalyeynaa waanu kugu salaamanaa sidii sharafta lahayd u soo noqotayna iyaduna si la midabay ahayd sida kale ee xogta intii aad Abu Dhabi iyo Imaaraadka joogteen aad xogtiina u xafideenna si dowladnimo bay ahayd taana madaxweynuhu waan kugu taageeranaa runtii awal hore waxa jiri jiray in madaxweynuhu marka uu baxayana wadooyinka la xidho dadkana la abaabulo saqar badan iyo qaylo badan la sameeyo lana moodo in imiga adduunyadii oo dhan la soo qaadayo marka la soo noqonayana tanaag maran oo aan waxba ku jirin too la soo garaaco looran jiray haddaanu ictiraafkii keenay iyo haddaanu maxay keenay hadeer taasi waxa weeye waxaan jirin dadka yaan loo samaynin xaqiiqada dhabtii sidaa imiga madaxweyne Ciro u baxay xukuumadda wadani u socoto ayuu u eeg yahay itaalkeena iyo muuqaalkeena bini aadamku waxa haddii itaalka uu been sheego dantaada ku been sheegta bara saabka gobolka awdal ee cusub oo aanan runtii aqoon lahayn waxaan ku hambalyeynaya khudbadii uu kaga hadlay dhagax dhiga wadada Baki iyo Boorama arinta labada qodob oo ahaa xashiishka shirkadaha xashiishka gura iyo kuwa leydka uu kula hadlay oo wiri dariiqadana shida xashiishkana kuriya runtii aad baan ugu taageersanahay waxa kale oo bara saabka doonaya inaan u sheego gobolkan awdal waa gobol tacliimeeda waana gobol nabdoon waxaan u jaar la leeyahay gobollo badan sida kililka shanaad gobolka Faafan iyo gobolka Shiniile nabadgeliyo iyo walaalnimo iyo xiriir sokeeye ayaa ka dhaxeeya kaanayna sii xoojisa ayaan ka codsanaya waxa kale oo doonaya xagga kale galbeedka Selal iyo Awdal iyaguna waa xiriir bay leeyihiin oo waa jaar iyagana waxaan ka codsanayaa in wadajirkooda iyo walaalnimadooda hagaajiso xagga bari waxay iska soo gaadhaan gobolka Saaxil oo ay xeebta xuduud ka wadaagaan iyo gobolka cagaaran ee Gabiley oo ay bariga Awdal iyagana ay ka wadaagaan runtii markii xilka loo wareejinayay bara saabka gobolka Gabiley waan joogay xil wareejintiisii fariin ay bara saabka iyo gobolka ii soo fareenna waan loobayo oo yiri nagu salaan runtii aad bay idin soo hambalyeynayeen waxaanay jecel yihiin inay gobolka iyo gobolkaas xiriir yeeshaan wadad wada dhashay oo walaala oo ehela runtii inay nabadgelyadooda iyo siyaasadooda iyo wax wada ahaanshahooda ay xiriir ka yeeshaan baan jecel yihiin waxaan jecelahay gobolka Awdal maadaama gobolka Gabiley ka weyn yahay inuu kala shaqeeyo gobolnimadiisa bara saabka gobolka Gabileyna waa nin firfircoon waana nin ay tahay ujeedada kaliya ee siyaasadda uu galay si ay Soomaaliland ictiraaf u heli lahayd gobolka Gabileyna aqoonsi iyo gobolnimadiisa u heli lahaa aad baan ugu hambalyeynaya in dhammaanba gobolada hareeraha inaga xiga wadajirkooda iyo nabadgelyadooda iyo walaalnimadooda aad ka shaqeyso aad baan kuugu hambalyeynaya inta gudoomiye